kadib markii ay Maariya la tagtay jacaylkeedii waxaa carooday ninkii milkiilaha ahaa waxa uu soo diray dad si walba uu soo raadiyay mansabkiisa iyo lacagtiisaba. Ninkii milkiilaha ahaa waxa uu helay nooc kasta iyo xeelado uu dadka kaga dhaadhicinayo in wiilku yahay nin xun. Isagoo ku qaylinaya gablankii sharka ahaa waxa uu soo jiitay Maariyo kadibna si xun buu ii dhaawacay. Si lama filaana ninkaasi weji buu naga diyaarsaday haddana waa uuna qiyaamay. Balse mudan ha ka warwarin annaga ayaa kuu soo qaban doono. Waxa uu yidhi qofkii ii keenay ninkaas sirtiisa ama si ii soo ogaada halka uu ku sugan yahay waxaanu ballan qaadayaa wax uu ku farxo. Dadkiina waa ay ka oggolaadeen. Aakhirkii Maariya iyo wiilkii iyagoo meeshii taaganaya waxa uu imaaday nimankii dhulka lahaa. Ugu dambeyntiina waa la soo qabtay. Maariya waxaa loo kaxeeyay gurigii milkiilaha, wiilkiina waa la garaacay waxaana lagu xirxiray Maariya darteed. Waa ay daawan kari weyday geerida jacaylkeeda waxay go'aansatay inay tuugto milkiilaha. Maxaa sidaan u samaynaysaa? Waan ku baryayaa, waad qabsan kartaa aniga. Iska daa wiilkaas. Inta uu qoslay wuxuu yidhi inaan soo daaqayo nololahaas wax dhici kara maaha. Laakiin hal shuruud ayaan wataa. Waa maxay shuruudda ayuu ku tiri? Waa inaad qaratay in jacaylkaana khalad yahay oo aad halkaas ku joojiso sidiisaba. Isla maalinkii xigtay Maariya waxaa lagu qasbay inay samayso wixii ay u ballan qaaday milkiilaha. Wiilkiina waxay ku tiri aan iska dhignin inaanay waxba naga dhexaynin. Waxaan ugu dambeyntii gartay dareenkan kuu qabo inuu qaldan yahay. Ma wada joogi karno. Wiilkii ayaa yidhi Maariya maxaa kugu dhacay? Ma lagu qasbay? Waxay tiri cidna imay qasbin. Anigii adiga waxaan ka tirsanahay laba duni oo kala duwan. Weligeena ma isla joogi karno. Waxaan ka tirsanahay laba duni oo kala duwan. Kani waa hadiyaddii kuugu dambeysay. Qaado oo ka tag halkan. Maariyana halkii ayay uga dhaqaajisay. Wiilkii waxa uu sameeyay ayuu garan waayay. Noloshii waa ay ku xumaatay isagoo iska wareersan ayuu soo baxay. Kadib waxa uu is yiri fiir horta kartoonka maxaa ku jira. Oo bacdeen waxa uu arkay qoraallo ay Maariya soo qortay. Waa uu farxay halkii ayuuna ka soo cararay. Maalintii xigtay waxaa la gaaray xilligii nikaaxa. Waa ay soo baxeen. Maariya waxa ay soo raacday ninkii. Hal mar ayay indhaheedu qabteen wiil qurux badan oo halkaa ka muuqda. Waa ay yaabtay waxayna tiri indhahan waxay u egyihiin indhaan arki jiray. Mana igu cusba. Waa kuma talow. Maariya fikir ayay gashay. Haddana waa uu ku dhool cadeynaya. Waa kuma qofkan talow ayay leedahay. Kadib milkiilihii ayaa ku yiri waxaan doonayaa inaad bularka ridaan. Waxaa la gaaray xilligii faraantigeliska. Dadkii halkii ay ka sugayeen in farxad ay dhacdo. Qof waliba waxa uu arkay warqado halkaa duulaya. Dadkii iyaga oo yaabanaya waxay isdhahan balaan fiirin warqadaha wax ku qoran. Warqadii haddii la akhriyana waxa ku qoran qof walba idin kamid ah waxaan doonayaa inaan dhaco dhulkiisa. Indhaha ayay wada taageen. Alla kuwani ma feelalka dhulkeeni baa. Ninkii aan la jirin miyaaba na qiyaamayo. Kadib Maariya geeskeeda ayay waxay ka aragtay jacaylkeeda waxayna ku tiri alla adiga iyo inta. Hawa aniga Maariya adiga dartaa ayaan ku badbaaday. Wado wanaagsan ayaan ii furtay. Mana aqaan waxaan kugu mahad celiyo. Aad ayaad u mahadsan tahay. Ugu dambeyntii waad guulaysatay laakiin ma ii sharxi kartaa wixii aad samaysay. Waxa uu aqriyay warqadii waxaana soo baxday in Maariya ay tustay sida loola dagaallamo milkiilaha iyadoo ugu baaqday qoraal ahaan. Jacaylkaygii aad baan uga xumahay runtii ma hayo wado kale. Waa sida kaliya aad noloshaada ku badbaadin karto hadda. Waxaan ogaaday in milkiilaha uu dhacay dhul badan oo dad masaakiin ay leeyihiin. Sida kaliya aan ku wada socon karno waa inaad raadiso wax ku saabsan arrinkaas. Had iyo jeer waan ku jeclahay waana wada joogi doonaa weligeen. Dhiiranaan iyo farxad ayuu dareemay markii uu arkay ereydii u soo qortay Maariya. Farxad ayuu la waalan gaaray. Waa uuna soo baxay. Ka hor maalinta arooska wiilkii waxa uu soo dhuuntay milkiilaha gurigiisa si uu u raadiyo feelalka uu haayo. Wiilkii waxa uu arkay qol ka muuqda banaanka balse waxa ku sugnaa ilaalo badan. Wuxuu go'aansaday inuu suuxiyo ilaaladii wuxuu jabiyay qunfulkii si uu qolka u galo ma uusan niyad jabin. Qolkaas waxaa ku jiray dhammaan waraaqadihii beenta ahaa ee uu milkiilaha isticmaali jiray sanado badan. Wiilkii ayaa isla markiiba qaatay dhammaan waraaqadihii oo ka baxay kadibna isaga oo isugu ekaysiinaya kuwa buleerka shida. Waxa uu waraaqadihii ku shubay mashiinka laga ridayo buleerka. Milkiilihii waxa uu ka war helay dadkii oo ka soo horjeestay. Maalintaas kadib milkiilihii waxaa lagu qasbay inuu wareejiyo dhammaan dhulalkii uu gacanta ku hayay xataa dhulkiisa waa lagala wareegay. Qof walba wadada ku arkana waa uu tuuriyeynayay. Ugu dambeyntiina waa is calfadeen Maariya iyo wiilkii ka duwanaa dadka.